السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا سود هذا ما أنت وحنقعد عليك دونها هذول هذا نقطة قوة الرئة أو كانسركا سيدا ما دقنا هاي بكانسركا وهلس آد وين أو بالشدة آد نقوب بدن وحنربنا إن هذا النقطة قوة أو كانسر محوية هي كانسر وحكي معهن وحبن جركا كم ذا وثقل دن وبحثي أما كوريتان قلدان سميسي وأن الكنترولين أما أن العيرين نضاها سمركا سيدا قلدان أكوري وحولي بعتكو كان الدونا شخذي iyo habsami socodkii jirkaaga kansarka maxaa keeno kansarka dabcan wax shay gaar ah oo keeno oo la dhihi karo shaygaas keeno malahan balse waxa jiro qodobo aad muhiim u ah oo sabab u noqon karo ama la dhihi karo saameynta ugu weyn ee kansar bilaabashadiisa ay ka shaqeeyaan kuwaas marka saameynta weyn keeni karo ama dhibaatada keeni karo waxa ugu horeeyo isticmaalka tawaakada wax loo yaqaano ama sigaar ha ahaado ama taabuh ha ahaado ama tawaaka caadi ha ahaado wuxuu aad khatar ugu keenaa wuxuu khatar ku keenaa habsami socodka shaqada jirka kaasoo keeni karto in qofkan uu nugleen karto inuu kansar ku dhimaado qodobka koowaad waa tawaakada iyo waxyaabaha ka samaysan tahay sigaar ha ahaado taabuh ha ahaado shiishad ha ahaato kulligood waxay sabab u noqon karaan in ay keenaan kansarka kow bismillahir rahmaanir rahiim soo dhawaada walaalayaal halkani waa Kasmo Hospital page-keeni Facebook-ga iyo channel-keeni Kasmo Hospital ee YouTube-ka. Kasmo Hospital waxa halku dhig u ah care and cure oo ah macnaheeda daryeel dhameystiran iyo daawo nadiif ah. Sidoo kale Carabiga loo yaqaano ar-ri'aaya wal ilaaj oo ah daaweyn. qodobka labaad waa raashinada gasacadeysan waxa la xiriiriyaa inay sabab noqon karaan kansarka. sidoo kale raashinada bacda ku jiro raashinada maarto waxa weeyaan la shiilo kuwa shiilan oo kale kulligood waxa la xiriiriyaa in kansarka predisposing factor u yihiin ama qodob muhiim ah u yihiin oo keeni karo kansarada. sidoo kale waxa la xiriiriyaa daawooyinka sida qaldan loo isticmaalayo dad haddii jiraan daawooyinka sida qaldan loo isticmaalo ama dhakhtar iyadoon u qorin iska isticmaalo iyadana waxay qodob ka noqon kartaa daawooyinkaas kala duwan ee qofka jirkiisa galayo in dhibaato uusan filaynin oo kansar ah ama waxyaabo la xiriiriyo keento xanuun baabiyaal xanuun hadduu hayo dhibkiisa inuu dhakhtar u sheegto baaritaan lagu sameeyo daawona la siiyaa ku fiican. qodobka kale kiimikooyinka waxyaabaha ama ooma ahaato oo qofka uu sheeg ama kiimikooyinka kale lagu daro kiimikooyinka la ismariyo oo hadda waxa soo baxayba oo maqaarka la marinayo kiimikooyinkaas oo dhan waxay keeni karaan kansarka maqaarka ay keeni karaan. sidoo kale waxyaabaha keeni karo kansarka maqaarka waxa kamid ah radiation waxay dhahayaan radiationka laba shay waa ugu caansan yihiin hadda inta ognahay qorraxda badan radiationka way keentaa qorraxda way leedahay ultraviolet way leedahay radiation sidoo kale waxaa leh radiationka x-rayska iyo waxyaabaha la xiriiro ayagana radiationkaas way keeni kartaa. waxyaabaha kale oo ayagana muhiimka ah oo keeni karo waxaa kamid ah lack of exercise ama fadhiga badan qofka haddii inactivity-giisa ay badan tahay muddo dheer uu fadhiyo shaqo uu haynin wuxuu halis ugu jiraa in ay ku ziyaado halistii inuu ku dhaco kansarka. sidoo kale waxyaabaha kale oo keeni karo waxa kamid ah dadka alcohol cabo ama khamrada cabo iyadana waxay ziyaadin kartaa kansarka. sidoo kale hepatitis-yada dadka qabo kale hepatitis B hadaa qabo positive oo kale waxa halis ugu jirtaa in kansarka beerka uu ku bilowdo. qodobadaas oo dhan waxay keeni karaan kansarka. anaha hal shay ma keeni karo laakiin marka qodobo isku darsato genetically xataa qofka dad waxa jira dad nugul jiro oo u nugul in kansar ku dhaco iyadoo nuguleen waxa dhici karta qof aabihiisa u dhintay asna inuu dhaco waa dhici karta. marka genetic factor-ka waa qodob aad muhiim u ah asaasi ah oo keeni karo risk inuu noqon karo halis ku gelin karo qofka inuu ku dhaco kansarka. marka qodobadaas oo ugu muhiimsan kansarka waxyaabaha lagu hortagana waxaan hadda doonaa video wixii insha Allah. kanaalkeeni ayaad weli la socotaa waxaan jeclahay maadaama haddii aad tahay qof nagu cusub inaad subscribe gareyso oo aad la socoto waxyaabaha aan soo dhigayno gambaleelkana furo si aysan ku dhaafin waxyaabaha muhiimka ah ee aan ugu talagalnay bulshada gaar ahaan inaan wacyigooda kor ugu qaadno oo ugu talagalnay waxaan ugu talagalnay barnaamijkan inaan kusoo gudbino inay muhiim tahay in nolol la badbaadiyo waana maaragtay hadafkeena koowaad annaga Kasmo Hospital ahaan waad mahadsantihiin.